dembi baaris dilaagan waxaa la aqoonsaday 30 sano kadib taariikhdu waa 15 Luulyo sanadka 1980 goobtu waa degmada Ken ee stateka California qaar ka mid ah shaqaalaha beerta Lawson oo hal meel u jirta jidka highway-ga ayaa si kiisa ula kulmay meydka qof dumar ah oo yaala wadada dhinaceeda isla markiiba waxay la xiriireen laamaha ammaanka waxayna u tilmaameen goobta ay dhibaatadu ka dhacday booliska iyo baarayaal ayaana soo gaaray goobta waxayna la kulmeen haweeney dhalinyaro ah oo ay da'deeda ku qiyaaseen 35 sano jir qaybta hore ee jirkeeda dhiig badan ayaa ka socday tobanaan toori ah ayaana lagala dhacay qaybaha sare ee jirka waxayna ahayd calaamad iska cad oo sheegaysa in haweeneydan dilkeeda uu ahaa mid bareer ah goobtan waxa kale oo ay ku arkeen raad gaari laakiin ma aysan arkin raadka darawalka ama qofka gaariga ka soo degay waxayna u muuqataa in dilku uu ka dhacay meelo kale dilaaguna uu watay gaarigan ku soo dhowow go'aanso channel iyo mid ka mid ah sheekooyinka dambi baarista haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad daawanayso kanalka fadlan taabo subscribe si aad uga mid noqoto asxaabta joogtada u hela muuqaaladeena sidoo kale like saar muuqaalka si aan u gaarno asxaab kale oo qiimo badan mahadsanid ma aysan wadan baasaboor kaar shaqo mid waxbarasho ama wax aqoonsi ah sidoo kale boorso gacmeed ama dahab midna maysan wadan noocyada baaritaan ee ugu adag waxaa ka mid ah marka aan la garan karin magaca ama aqoonsiga dhibanaha lama yaqaan jaha baaritaanka laga sameeyo iyo cid dabagal lagu sameeyo wadada keliya ee wax lagu ogaan karo waa baaritaanka meydka dhaqaatiirtuna waxay sheegeen in dhibanaha kufsi loo geystay inta aan la dilin waxayna jirkeeda ka heleen muunad ka mid ah biyaha dilaaga jirkeeda waxa kale oo lagu arkay laba tattoo waxay ahaayeen calaamado lagu aqoonsan karo 1 Luulyo 1980 saddex maalin kadib markii la helay meydka koowaad waxaa la soo sheegay dhacdo labaad goobtu waa degmada Ventura ee stateka California shaqaalaha nadaafadda ee dugsiga Westlake ayaa soo sheegay qof meydkiisa lagu arkay meel u dhow dugsiga waxa ay haweeney kale oo toori lagu dilay kabaheedana waxaa lagu tuuray jidka dhinaciisa meel ku beegan buru dhow dugsiga baakinka dugsiga ayaana lagu arkay xariijin ballaaran oo dhiig ah waana astaan tilmaamaysa in meeshan la jiray qof dhiig ka socdo sida muuqata gaari ayaa lagu qaaday meydka balse dilaaga meydku kama fogeyn dugsiga wuxuuna ku tuuray buur wax yar u jirta dhibanahan waxa loo dilay qaab la mid ah habkii loo dilay haweeneydii meydkeeda la helay 3 beri ka hor sidoo kale kufsiga ayay la wadaagtaa in badan ayayna nafteeda difaacday sababtoo ah waxa ku yaala gacmaheeda dhaawacyo badan oo tilmaamaya inay iska qabatay tooriyo uga dhici lahaa meelaha halis ah si la mid ah meydkii hore ma aysan wadan wax aqoonsi ah goobta dilkana lagama helin boorso ama agab kale oo ay wadatay sidoo kale jirkeedu ma lahayn wax tattoo ah waxayna ahayd xaalad kasii adag midii hore galka baarista ee kiiskeeda waxaa lagu qoray dhibanaha garanwaaga ee Ventura dhaqaatiirtuna waxay cadeeyeen in jirkeeda lagu dhuftay 29 toori ah labada kiis waxa la lagama gaarin sababtoo ah dambiiluhu wax cadayna kama tagin sidoo kalena laguma guuleysan in la aqoonsado labada dhibane 30 sano kadib sanadka 2011 ayaa loo magacaabay taliyihii hore ee degmada Ventura inuu hogaamiye guddi loo xilsaaray xal u helidda kiiskan aan natiijada laga gaarin taliyahan waxa lagu magacaabay Stephen Rudis kiisaskii u saarnaa miiskana waxa uu ka doortay mid ka quseeya dhibanaha la garan waayay ee degmada Ventura calaamadaha kaliya ee la hayana waxay ahayd xaawadii ama biyihii dambiilaha geystay kufsiga iyo dilka 30 sano ka hor ma jirin shaybaar lagu ogaan karo qofka iskala biyaha sidoo kale dharkii ay xidhnayd dhibanaha ayaa laga helay DNA-ga dambiilaha baaritaanada casriga ah ee la sameeyay 2011 waxa laga gaaray natiijo wax ku ool ah DNA-ga laga helay jirka dhibanaha waxa uu la mid noqday midka dambiila caan ah oo lagu magacaabo Wilson Chusty kaas oo waqtiyo hore lagu eedeeyay kiisas la xiriira kufsi sidoo kale isla DNA-ga laga helay waxa kale oo la mid noqday midkii laga helay dhibanihii lagu dilay degmada Ken taliye Steve waxa uu dalbaday in warbixin dhammaystiran laga soo diyaariyo eedaysana Wilson Chusty waxaana loo sheegay inuu yahay nin cadaan ah oo ku dhashay kuna koray gobolka Louisiana waxa laga saaray shaqada ciidanka sabab la xiriira maandooriyaha oo uu si baan u isticmaali jiray shaqada markii laga fariisiyay waxa uu degay Los Angeles intaas kadib waxa lagu eedeeyay kiisas la xiriira kufsi xabsi ayuuna galay 1977 kadib markii ay ku cadaatay inuu kufsaday gabar 2 sano oo kaliya ayuuna xirnaa waxaana lagu sii daayay damaanad wuxuuna u guuray degmada Kings 3 bilood oo kaliya ayuuna banaanka joogay markii la kufsanayay lana dilay labada gabdhood ee aan warbixinteeda soo aragnay cadaymaha DNA-guna waxay tilmaamayaan inuu yahay shakhsiga ka dambeeya kufsiga laakiin taasi kama dhigna inuu dilkeeda mas'uul ka yahay sidaas darteed maxkamadda lama geyn karo inta aan la soo dhameystirin cadaymihiisa Chusty isaguna ma oga meesha ay marayaan baaritaanada boolisku wuxuuna inkiray inuu xitaa weligiis arkay labada dhibane I don't know her. So there's no way your DNA is going to be in this girl's clothing? No.
taliye Steve dooni maayo inuu khamaaro wuxuuna xiriir la sameeyay qaybta booliska ee degmada Ken wuxuuna ka codsaday inay la wadaagaan galxogeedka eedaysanaha galxogeedka waxa uu ka helay waraysi laga qaaday Wilson markii ay dhaceen labada dil wuxuuna waqtigaas sheegay inuu la noolaa qoys lagu magacaabo Bell nasiib xumada dhacday boolisku waqtigaas ma aysan raadin qoyska uu sheegay inuu la noolaa eedaysanuhu taliye Steve waxa uu dadaal ku bixiyay helitaanka qoyska ugu dambeynna waxa uu ku guuleystay inuu la kulmo Marwa Bell iyo wiil ay dhashay oo lagu magacaabo Scott markii uu weydiiyay inay garanayso nin lagu magacaabo Wilson Costi waxa ay ugu warcelisay inay daba joogaan haweeneydii uu ninkaasi dilay taliye Steve iyo baarihii la socday waxay ku noqotay ama kaag iyo argagax in Mr. Bell ay og tahay faldambiyeedka dilka uu geystay Wilson Costi wiilka ay dhashay Mr. Bell oo lagu magacaabo Scott ayaa hadalka qaatay wuxuuna u sheegay in Costi uu uga warramay qaabka uu ciqaabay haweeneyda inta uusan dilin markanna waxay hayaan cadayn ku filan iyo markhaati Wilson Costi ku cadayn kara inuu dilay sidaa darteed xabsiga ay u taxaabeen 13 bishii 9 2013 ayaa la taagay maxkamadda laakiin nasiib darro garsooruhu waxa uu xukumay inuusan dambiile ahayn cadaymahanina aysan ahayn kuwa ku filan mar labaad ayaana maxkamadda la soo taagay bishii 7 ee sanadka 2013 38 sano ayaana ka soo wareegtay labada dil ee uu geystay Wilson Costi ugu dambeynna waxa lagu cadeeyay inuu ka dambeeyay dilka labada gabdhood ee ka dhacay degmooyinka Ventura iyo Ken waxaana lagu xukumay 2 xabsi daayin oo aan cafis iyo iibsasho midna lahayn dambi baare Stephen Rudis uma arko in shaqadiisa halkaas ku dhamaatay wuxuuna kulan la qaatay Wilson Costi wuxuuna ka codsaday inuu u sheego cid ay ahaayeen labada dhibane meelaha uu kula kulmay iyo wax walba uu ku og yahay ujeedkiisu waa in qoysaskooda la ogeysiiyo halka ay ku dambeeyeen wuxuuna u sheegay in dambiilaha koowaad ee degmada Ken uu kula kulmay meel baar ah oo lagu magacaabo Homeford halka dhibanaha labaad ee magaalada Ventura uu kula kulmay xaafadda Fishilia intaas wuxuu ku daray inuu mid walba la kulmay maalintii ugu dambeysay nolosheeda oo uusan aqoon dheeraad u lahayn cidda ay tahay ama meesha ay ka soo jeedo 2 sano kadib xukunka maxkamadda bisha labaad ee sanadka 2020 haweeney ayaa aqoonsatay dhibanaha degmada Ken waxayna sheegtay inay tahay eedadeed Shirley oo la waayay 1979 taatuga gacanta u yaal ayaana ku gartay ayay tiri si loo hubiyo saxnimada sheegashadeeda waxa la qaaday dhicaanka DNA-ga waxaana la barbar dhigay midka dhibanaha sidaas ayaana lagu xaqiijiyay inay tahay qaraabadeeda dhibanaha labaad oo haweeney lagu dilay degmada Ventura ilaa maanta laguma guuleysan aqoonsiga qoyskeeda inkasta oo dambiilaha cadaaladda la hor keenay 38 sano kadib haddana waxaa jira qoys aan ka warqabin nolol iyo geeri meesha ay ku dambeysay gabadhoodu intaas ayaana ku soo gabagabeynayna sheekadeena maanta wixii fikir iyo faalo ah hoos noogu reeb sidoo kale haddii uu jiro mowduuc aad jeceshahay inaan muuqaal ka soo diyaarino qaybta commentiga noogu dhaaf